dalka koonfur afrika waxaa soo baxay nidaam ku shaqeeya telefoonka mobilka oo aad ku dalban karto nadiifiso guri waa kan cabdiraxmaan bidhaan oo ka waramaya waqti dheer ayaa la sugaa oo ay qaadataa in aad shaqo heshid dadka halkan fadhiya waa inay buuxiyaan fooman badan isla markaana ay haystaan teleefoonadan moobilka ee casriga ah taasina waxa weeyaan waa shaqo nadaafadda ah haddana waxa weeyaan shaqo ku shaqaynaysa habka casriga technology-ga waxaan ganacsigan la bilaabay Alan isaga ayaan wada leenahay waana ninkeyga markii aan bilaabnay dantaan nagu kaliftay markaan u baahanay qof nadiifiye ah xitaa Facebook aan qof ka raadinay sidan ayaanay u shaqaysaa marka hore qofka isagu doonaya in loo shaqeeyo ayaa waxa uu soo dirayaa codsigaas oo uu ku sheegayo waxyaabaha u baahan yahay iyo saacadaha ay tahay in loo shaqeeyo taasi ayaa dabeetana waxay keenaysaa in qofkii ku habboonaa shaqadaasi loo xulo Nosiela Kazembenia waxa ay iyadu heshay shaqadeedii ay weligeedba rabtay markaan yaraa waxaan rabay inaan tacliin fiican yeesho iimay suurtagelin kadibna waxay noqotay inaan shaqo tago marka aad baan ugu ganacsanahay shaqadaydan waan helaa mushaharka la ii ballan qaaday inaad hesho dakhli joogto ah ku soo gala iyo mushaharkaaga mar walba waxa ay tahay arrin runtii qof waliba uu doonayo oo muhiima dad fara badan oo ka shaqeeya dalka koonfur afrika ayaa waxaa dhacda in mararka qaarkood laga dafiro mushaharkooda ama la siinba qiyaasta ugu hooseysa ee dalkaasi laga bixiyo ee $35 ah weegii ururada shaqaalaha ayaa iyaguna arrinkan ka hadlay dadkeena guryaha nadiifiyo waxaan nahnay dad nugul oo aan hadli karin waxaan nahnay dad aan aqoon lahayn sharciyada soo baxayna qaar badan oo na quseeyo ma fahmin tiknoolajiyadda casriga ah ayaa waxay suurtagelisay in dadku ay shaqo helaan oo ay fududayso taasi oo dadka ka shaqeeya xagga nadaafadda u keentay iyagana inay marar badan lacag iyo ay helaan wax soo saar ay soo saaranayaan meel kasta aad dunida ka joogto waxaad wararka ugu dambeeya aad ka daalacan kartaa BBC Somali app adigoo isticmaalaya mobilkaaga waxaad gashaa Google Play Store ama Apple App Store raadi BBC Somali kadibna si bilaash ah ku soo degso sidoo kale si aad idaacadda u dhageysato waxaad wicitaan ka dhex samaysan kartaa gudaha appka wicitaanka waxaa suurtagal ah inuu bilaash yahay ama inuu lacag yahay fadlan ka hubi shirkadda ku siisay adeega mobilkaaga